يا ابو goordhow waxaa shir jiraad qabanaya xildhibaanadii loo diiday inay galaan xarunta gudaheeda لكن الحمد لله وحن ديار وهن إن دلكنا دلكنا أن أدمنه أن حق كدمنه وحواي وحنا الله حساب تمدونا إن شاء الله ودوني عثمان جواري محمد عثمان جواري والله حساب تمينا ما دعوت نفتر كيسو كجرا والله حساب تمينا محكمة أنا اللي تيجي دونا إن شاء الله ميل والبي ماشي نوق صورة جلسني حلك قاعد وقسمين دونا آذان ومهتمين. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa cali yuusuf cali xoosh baa la yiraahdaa anigu waxaan ka mid ahaa 20 xildhibaan oo waqti hore galay xarunta ka bacdina waxaan filaynay inay xildhibaanada kala soo galaanin haddii aan markaa 2 daqiiqo intaan joognayba waxaan soo galay gudoomiyihii hore Jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenkii labaad oo wata ciidan Maleesiyaada oo 2 qaybood oo qaarna tuuto wato qaarna dharcad yahay intii dharcad ahayd waxay nagu soo gashay gudihii intii kalena waxay fuushay baarlamaanka korkiisii iyo qaybihiisii kala duwanaabay fuuleen waxay u suurageli weyday marka xubnihii kale oo baarlamaanka oo safka ku jiro banaanka joogay oo hadeer aanagu gadaal ugu soo noqonnay inay soo galaan gudihii ilaa iyo haddana muxuu ahaa meeshii waa gudoomiyihii Maleesiyaad buu ku haystaa taliyihii nimankii ciidanka u sareeyo saraakiisha ahaa waa yimaadeen way la hadleen ciidanka ka saar meesha yiraahdeen waana ogolaan waayeen marka waxa aad iyo aad arrin u adag ah gudoomiyihii baarlamaanka oo shalay codka aan ku dooranay maanta isagii inuu Maleesiyaad aan sharci ahayn oo nagu haysto oo meesha ku qabsaday maalmo ka hor wuxuu aad iyo aad u diidanaa oo ka hadlayay wuxuu lahaa ciidamada la keenay booliska meesha oo dheeraada ciidamada laga qaado hadee shalay ninkii ciidankii sharciga ahaa oo ciidamada ahaa diidanaa maanta isagoo muxuu ahaa gudoomiyihii sheeganaya inuu Maleesiyaad ku qabsado horta waa shay ayaan daraa anaguna hadda naguma wahaysan karo Maleesiyaad naguma qabsan karo doorasho iyo muxuu ahaa waxaan raalli ka nahay buu gudoomiye noogu ahaan karaa aqlabiyadii baarlamaanka iyo muxuu ahaa baarlamaanka iyo dhan hadda waa aragtaan meeluu taagan yahay
arrintaas waxa weeye waa arrin sharci darra oo aan laga filayn oo cimri ahaan iyo mas-uul ahaan iyo sifo kale sifaba aan looga filayn odaga marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrintaasaana muxuu ahaa hadda anugu aan meesha kaga soo baxay gudaha بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو واحد بانا من عمر جامع وحان ساكا لحدي نمي قوله شعبك أنا قو سعنا هالمالميت كياجي صحدها هي الشقة يدي هاي موشينكي حلك قادسته قدوميها يجي هراء محمد عثمان شواري وحنو ماشي كلنا iyadoo ciidan meeshii la wareegay albaabadii la xidhay shaqadina saasay u socon weyday waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waxaan way iska dhamaanayaan amnigana waa la sugayaa dhibaatana ma jirto waa wax iska dhamaan doona wax la inintaad qaaday xunba cuskay wax dhibi ma jiraan hal la isdajiyo waa maalin waxani mana aha wax dhib leh kollayba waa la isku dayay laakiin wax sii soconaya maaha waxaana u jeedinayaa gudoomiyahayagii hore maxamed cismaan jawaari halku sidaa maaha waxaa lagugu doortay cod baa lagugu doortay codkii lagugu doortay imikana iimaanka ku qab haddaad wax ku helayso iyo haddaad wax ku waayaysaba saasaan leeyahay ma aragtay madaxda qarankana ayaan la aflagaadayn cidna ayaan la aflagaadayn booshinka xildhibaanaha wata xildhibaanadina waa kuwaa tuban asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم دمان وحن سلامة يا شعبك الصوماليات يا صحافة شرفت له كارهان دلين يرضي يا هوينك هل كان وحا كدع الساكي وحن نمت لحدي oo gawaanu nimid waxaan rabnaa hawsheeni qarannimo ee baarlamantariga inaan halkan ku gudanno waxaan naga hor yimid fal dambiyeed oo aanan weligeena aanan ka filaynin waxaan moodnay dalka inuu hagaagay waxaan moodnay in daacad ay jirto dastuur iyo shaqaynayo xeer hoosaad waxaan aragnay in xildhibaano koox yar ah ay rabaan inay haystaan baarlamaankii Soomaaliyeed oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cawad aad baan ugu xumahay codkaygan ku doortay labada gudoomiye waxaana doonayaa sharci inaan u maro inaan haddana cod aan kaga baxo ma ahana in maanta qori la keensado waxa laga baxay mar hore laga baxay cid qor u hogaamisan karta oo dalka ku qabsan kartana ma jirto waxaan ka raali gelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan warxun yaan lidin sheegin koox yar oo wax doon ah oo naftooda kuraas u rabta ayaa rabta inay kuraasta ku haystaan dalkana ku haystaan afduub mana dhacayso insha Allah waxaan kaga baxaynaa inaan cod ku kala baxno dalkana waxaan rabnaa in lagu hogaamiyo sida xaq ah ee shuruudda ay tahay baarlamaanka ayaa iskale codka cid kale oo leh male xildhibaanadaad soo doorateen oo idinka wakiil idinka ah ayaa maanta meesha taagan oo banaanka ka taagan baarlamaankii waxaan nin walbana wuxuu doonu sheegi karaa qolo kale hadlayso waxay leedahay annagaana la celiyay waxaas waa been gudaha dadkii galay baa ahay staafkii jawaari baa aniga bistoolad ila soo baxay oo bistoolad i tusay saakay oo yiri meesha ma fadhin kartid shirka muxuu ka soconaa misxabadayna annaga dawladii iyo dadkii mar rabnaa iska hor keenno annaga u dulqaadanay dalkii oo aan rabna inay nabad dalku ku hogaansamo waxaana u dulqaadan mayno insha Allahna talaabo sharci in laga qaado way maxkamadii waxa xal noqonaya cad baa la tagayaa مع السلامة meeshan walaalayaal xaruntii golaha shacabka hor joognaa halka guriga u jeedaan waa guriga golaha shacabka Soomaaliyeed xildhibaanadii golaha shacabka Soomaaliyeed saafka waxay saf u soo galeen inay xaruntooda galaan waxa saaran halka gudoomiyihii iyo ciidamada maleeshiyada uu wato golihii ayaga heesta qaybta kore qoryay la saaran yihiin waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u macneeyo macnaha ay leedahay gudoomiyuhu inuu ciidamada maleeshiyada inuu intuu soo qaato uu golaha shacabka ku qabsadaan rabaa inaan idin macneeyo waa dhamaadka gudoomiye jawaari waa saacadii ugu dambeysay golaha soo galo macna kale ay leedahay ma jirto gudoomiye jawaari markii uu golaha shacabka Soomaaliyeed
وقرية إيه ماليشيات لسه قلي معناه هذا دبته وحواي ودماتكي قلها شعبك أو قدومية كنقض it is over. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa xildhibaan Mariin Cabdi Geedi waxaan ka mid ahay xildhibaanada maanta albaabka laga xirtay waliba aniga waxaan ahaa kuwii galay meesha oo gudaha galay abaar markaan fadhinay waxaa noo soo galay niman dhar cad ah oo bistoolooyin wata oo bistooladii dhinaca naga tusaaya oo maaragtay nacabsi gelinaya waa ku adkaysanay wax yar ka bacdina waxaana la yiri korbaa waxaa saaran yihiin hub waaweyn قدومي جواري قدومي أنا دهنا أنا جواري قامي كحات كجواري قبل أنا